saaxiibayaal mar kale soo dhawaada maanta waxaan qaadanaynaa wada sheekaysigan aadka u xiisaha badan una dhexeeya wiil iyo gabar conversation between boy and girl. Gabadhii baa hadalka bilaabaysa waxay leedahay hello, you are happy today, maanta waad faraxsan tahay, and your hands gacmahaaguna are on the table, miiska ay dul saaran yihiin. So what's up? Sidaa darteed maxaa cusub? Wiilkiibaa wuxuu leeyahay there is something, waxbaa jira, which refuses to me, kuwaasoo ii diiday to rest, inaan nasto regularly, si joogta ah, and read aanan u aqriyo my lessons casharadeyda well, si wanaagsan. Waxay leedahay dear brother, walaalkayga qaaliga ahow, whatever bothers you, wax waliba oo ku dhibaya, is not needed, looma baahno to hide, inaad qariso. So what is new? Sidaa darteed maxaa cusub? There is something, waxbaa jira buu leeyahay haddana, which I have been hiding from you, kuwaasoo aan kaa qarinayay for a long time, waqti dheer, and it's secret, waana sir. Markaabe waxay ugu jawaabaysaa before it becomes to you, ka hor inta aysan kugu noqon disease, cudur, please display it, fadlan soo bandhig. Markaabuu leeyahay your beautiful and hairy cheeks, dhabanadaada timaha leh ee quruxda badan ayaa attracted to me, isoo jiitay. So sidaa darteed love and cuff, unfac iyo jacayl, can't be hidden, marnaba lama qarin karo. I mean waxaan ula jeedaa I want you waxaan kaa doonayaa to be my darling, inaad noqoto gacalisadeyda, and share with me, aadna ila wadaagto a deep love, jacayl qoto dheer. Markaasay leedahay it is a lefty last night, waa habeenkii xala tagay. It is lefty last night, waa habeenkii xala tagay, to share with you, inaan kula wadaago a single day, hal maalin. Because maxaa yeelay you are not handsome boy, ma tihid wiil qurux badan oo rich, mise mid qani ah. Markaaba wuxuu leeyahay you are merciless person, waxaa tahay qof aan naxariis lahayn, merciless, naxariis darro wey. Markaaba wuxuu kusii darayaa please help me, fadlan i caawi, before I drink, ka hor inta aanan cabin, poison, sun inta aanan cabin, i caawi buu leeyahay, waxaa tahay qof aan naxariis lahayn. Markaaba waxay ku leedahay hadalkan oo waa ay ka yaabsanaysaa, si fiican iskaga celinaysaa. Waxay ku leedahay don't wait me, ha iga sugin bay leedahay, to save you, inaan ku badbaadiyo, even xitaa if you are in haddii aad ku jirto a lion's mouth, aflibax, xitaa aflibax haddii aad ku jirto, badbaadaha igu sugan bay leedahay wiilyahow, mid oo hantilena ma tihid, mid qurxoonna ma tihide. Fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag sidaad u aragtaa wada sheekay sida noocan ah. Follow me for more. Thank you.